وقتها داوديال ولي وحنا برتمها وجرنا برنامج كان ورجلين برنامج كان أمانة إذا هنا ومد أدو حس بدن لكن ما حنربنا إن إذا ودينه ولجين مية أركتين كان وقتها هي وحير إلى الصعدة أنا إذا جواب دون سؤالها أنت ترى بدن أنا يوديني لكن مية مقشان هستن waxaan u maleynayaa dad aad u far badan inay heestan ay maqleen iyagoo gaarigooda saaran iyagoo meel xaflada jooga laakiin ma og tahay heestan inuu qaado adunugal iyo ku nool beela nabadeedii aad naftaydii iyo wadnahan waa tahay magaca fanaankan waxaa laga yaabaa inaa maqasheen laakiin mas'uulkiisa aydan si fiican u aqoon waxaa la dhahaa Cabdi Cali Bacalwaan waa fanaan qaran waa fanaan kamid ah hobalada waa bari wuxuuna kamid ahaa fanaaniintii ugu horeeyay ee lagu bilaabay hobalada waa bari aniga ahaanteeda wax badan baan maqli jiray yaraanteediina markii aan Soomaaliya joogay heesahan waxa xasuustaa gurigayaga ayaa laga sii jiray oo walaalaha iga weyn ayaa dhageysan jiray waa tahay waxaan idin soo duubnay wareysi aad u xiiso badan oo aan ka soo qaadnay fanaankan caanka ah Cabdi Cali Bacalwaan wuxuuna nooga sheekeeyay waa bari markii uu soo biiriyay iyo heesihiisa noocyada kala duwan qaar kamid ah iyo tan uu ugu jecel yahay heesihiisa mid ay tahay nala daawada wareysiga adunugal iyo ku nool beela nabadeedii aad naftaydii iyo wadnahan waxaanu nasiib u helnay inaanu wareysi ka soo qaadno fanaanka weyn Cabdi Cali Bacalwaan oo jooga magaalada Nairobi Cabdi Cali Bacalwaan waxa uu kamid ahaa hobalada waa bari kuwoodii loogu jeclaa heesihiisuna waxa ay isugu jiraan nooc walba Cabdi Cali Bacalwaan waxa uu soo jilay riwaayado aad iyo aad u far badan Cabdi Cali Bacalwaan heesihiisa talantaaliga ah waxaan u maleynayaa in ummadda Soomaaliyeed intooda badan inay garanayaan waxaan halkan imid 97 ama xamarka in markaa soo baxay marka halkan tiino markii ugu horeysay aad timid ahayd mise waxay ahayd markii ka baxday oo soo noqotay ma waxaan imid hadda ka hor yacnaha dhowr goor baan imid festivaalo markaan dawladda ahayn festivaal aan imid way jirtay sidii festivalka beelaha madow oo 72 oo aanu Soomaalidu ay lambar 1 gashay laakiin anoo qaxoontiyan hadda imid markaa 97 sidee u arkaysay maadaama adigoo aad u timid wadankan festival mar hore hadana adoo maanta markaas xilligaas qaxoonti sidee ku lumay soo gaaraysa wallahi waxa weeye Soomaalidu waxa ku maamaadaa wiil jilaal dhashay waa reerkooda wax la qabe shay yacna wax gooniya oo loo samaynayo yacaano gooniya iyo dhiil gooniya iyo malaha maxay jilaal ku dhashay marka hooyadii waxay islaanta hooyadiisi waxay ay nafaqaysato ayuunbuu isna ka nuugaya marka waxa weeye waxaan arkay in dadkiisa wax la qaba oo burburka iyo jabka iyo halaaga iyo dawlad la'aanta iyo mashaakilka iyo dagaalada ku dhacay nooc isgeysisi kaga jira oo bulshada la mid ah adigoon taliin dhigaan ashaqaan ku dhaawacay ka dhigaya habar weyne jiilaal dadku oo la dholondholay inaba habeen waxaan soo ahaan jiray fanaaniintii Soomaalida oo waa bari loo bixiyo ugu horeeyay yacna markii waa bari loo bixinayay waxaanu ahayn 43 military ka soo wareegay iyo 10 raadiyo Muqdisho iyo 10 raadiyo Hargeysa 63 sano waa bari lagu bilaabay wixii gadaal ka soo marday dhowr boqol buu markii dambe ay gaareen intaas oo boqol bay gaareen laakiin intii lagu bilaabay 63 10 raadiyo Hargeysa 10 raadiyo Muqdisho 43 kooxda xoogga dalka waa la mideeyay magaca waa bari baa loo bixiyay tiyaatarka waxa looga dhigay saldhig marka anigu qolaas ka mid ah military ka soo wareegtay oo markii horena kooxda xoogga dalka
la oran jiray anoo saajinana waa soo wareegay ama saajina markii dambe dadkii aan dablaha uga soo tagay waxaan kidee jarano iyo koreeyla iyo marayo Bacalwaan waxa uu ka mid ahaa fanaaniintii Soomaaliyeed kuwoodii loogu jeclaa waxaana wax ka weydiinay in uu wax nooga sheego heesihiisii iyo riwaayadihii uu soo jilay waxaa ka mid ah adoon nugaal iyo ku nool beela nabadeed waxaa ka mid ah laqayada jacaylka iyo dhulka caasha kuula laandaqa geel walabigi jirka u dhow intuu loo xisliyo soo looli kama dhaco waxaa ka mid ah ardoy ergo aan hayga dhaqaaqi waxaa ka mid ah yaa xisaab ma xisaabi karo waxaa ka mid ah sida muuni subaxeed habeenkoon magdiyahay sida laan mariyo dhul malaaya ku agtaan iyo qurac mataano saddex isku mariyihiin oo madaxa laamo manka iyo caleenta miru isciidiyeen milixdina qabatay ma waa gaashay ereyada xasan gani riwaayadii diinta jacayl ku jirtay marka waa lama xisaabi karo riwaayada lama riwaayadahan iyo dab jacayl karo waa jacayl badan jin iyo jacayl hablo iyo doob qalatid lada roob noqoyde muxuu ahaa xuriyo xuski jacaylka kala saarka jacaylka raxmad asraarta jacaylka cadaabta caashiqa falxa sidii waxay fiqir waxay riwaayadaha amar raxmad hata kuwa kale ahaatee aan wax ka dhigay lama xisaabi karo kow lama oran karo ما فهمت مركا ده واحد أمك أن كوسو ترى كوبيكو معها لكن ده يسوع وفربني وعيد أعمار هسا أبو جعشة هسا ودي يعني ما بكايتها هو شرتا سيدا يي وفراس يزو كوجي داي يا شما يسيرو قرنوب ليتوبن يلدي ديسكي حدايو قردور ما يرعانيو كيما قلقلي معها وذا ما حرين دلي قلبتي عليه وقديت كهاري مذا وتكوز السحنكي يعملوا قداشي كما آية قران كما قبر كل أساسا يا قريسك كافورا وصراحة قددا دل سعيد كده يعني وحوي والبقابس أوشوك أقول كده حاجة قال ما حب الدليل يعني وحوي وحكى لولا ما تشيلو أنا محمد تلي مركز الكوليستي سكران بالمتلية وولي حريف وهو بلا وحنصو كان سنة أجل المتلية ورجع دي مركزها قبل واحد والبرشوك وحاجة نعس كا وحاجة سكران كا محا مركز هذا محا هيسس ما حاجة هذا ما يعني وحوي واحد سأله مركز قاضي هي سن يضع قاضي معايا ده ميلها إيت الماما يسوي يا واحد ميلها أنكرني ميلها أنكرني وحير أنا ورد يعني وماشي عن وكل شيء عمل وماشي كل شيء لكن حضيو ماشي جلديس حضيو كله وماشي كله يجي هاجر نقول يطلع جلديس ولوكي ولوكن هاوتك اللي سوي ما تضرب بالله يقول تعال واحد وياه تضرب بالله يتضرب وحاليا تضرب هرد كده تضرب هرد والله يتضرب هرد قردو markay koob iyo 2 gaab xisaabaad Soomaalidu baa isugu tabaad gees kasta marka dhulkan garay sidoo yahay يا قرب هاي سما هسه حسمي ninka la yiraahdo tac